kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada kuna soo dhawaada kanaalka qalbi Soomaali TV waxaynu soo bandhigaynaa isla markaana maanta falanqeyn doonaa waxyaabaha ka khaldan heesta cusub ee uu soo saaray fanaanka loo yaqaan Cabdirasaaq Anshax iyo waliba fanaanada qaaliga iyadana loo yaqaan Nimco Degan heestan oo magaceedu yahay Geel Jire balse daawadayaal haddii ay tahay markii koowaad ee kanaalkan soo booqato intaynan mowduucaba furan isla markaana u gudagelin fadlan calaamada subscribe-ka kanaalka saar kadibna calaamada gambaleelka furo ku soo dhawow barnaamijka ugu horeyn daawadayaal heestan magaceeda waxaa loogu magac daray Geel Jire Geel Jire dhamaantii waynu naqaanaa waa qofka geela raaca sidaas oo tahayna looguma yeedhi karo qofka lo'da raaca ama adhiga raaca haddaba heestan codadkooda waxaa ku qaadaya fanaanka loo yaqaan Cabdirasaaq Anshax iyo waliba Nimco Degan erayada dhinaca erayada ama midhaha heestan waxaa iska leh abwaanka loo yaqaan Cali Mooge sidoo kale laxankana waxaa iska leh Daawud Xanfar musiga waxa heestan tumay waxa weeye Furinle oo lagu yaqaano inuu musiga aad iyo aad ugu wanaagsan yahay idinku baa qiyaasi doona heestan marka dhageysataan in musigeedu fiican yahay iyo in kale kamarada iyo editing-kana waxa iska leh Waqal sidoo kalena waxa soo saaray heestan oo iska kaashaday Afro Waqal iyo walibana maaragtay guud ahaan Waqal studio waynu naqaana heeso badan bay soo saaraan laakiin heestani waxay kaga duwan tahay heesihii hore yacni qaabkii ay u bixi jireen heesihii hore jacaylka ahaa uma baxayso sidaa daraaddeed waxay u baxaysaa qaab ka duwan oo maaragtay dan iyo duruuf yacni u dhaxeeya haddaba bal waxaynu eegi doonaa heestan iyo erayada ku jira iyo welibana sida maaragtay heestan ay u tahay hees yacni soo jiidasho leh iyo inaanay soo jiidasho lahaynba labadaba sidaa daraaddeed heestan marka koowaad waxay ku bilowmaysaa fanaanada Nimco Degan oo gaari saaran ninna ku wada gaarigaas isla markaa ninka gaariga ku wada wuxuu doonaba ha ahaado ha ku matalayso ninkeeda ama ha ku matalayso wax kale si kastaba ha ahaado gaariga wuxuu kaga xumaanayaa meel miyiga meesha miyiga waxaa jooga fanaanka loo yaqaano Cabdirasaaq Anshax isla markaana fanaankaasi iyo koox kale oo geel jirayaal waxay ku matalayaan yacni dad reer baadiyo ah oo geel jira bay ku matalayaan balse fanaankani isagoo geel jira haddana wacdaro weyn buu ku dhigayaa xilliga heesta gudaheeda lagu jiro wax badan buu u sheegayaa gabadha sidoo kalena isagoo wax badan gabadha u sheegaya haddana qaybta dambe heesta ayaad ku arki doontaa wacdaraha uu dhigayo sidaa daraaddeed bal aynu bilaabano isla markaana soo qaadano erayada ugu horeeya maaragtay gabadhu ay adeegsanayso isaguna wuxuu ugu jawaabayo ayaynu arki doonaa ugu horeyn fanaanada loo yaqaan Nimco Degan maadaama qaybta ugu horeysa iyadoo erayada heesta ay leedahay waxa ay ku bilaabaysaa adduunkan iskarab degay waxa geedi loo yahay ee loo guntanaya guudka sare in laga dego yacni looma baahna in miyi dib loogu noqdo run ahaantiina fanaanku waa uu sheegayaa inuu isagu reer magaal ahaa jiray sidaa daraaddeed iyadu waxa ay leedahay adduunyadan horumar iyo tartan bay u baahan tahay waxayna u aragtaa yacni sida heestu u socoto weeyaane waxayna u aragtaa qofka reer miyiga ama qofka reer baadiyaha iyo geela uu jiro iyo miyiga uu jiro iyo looda uu jiro iyo waxaasoo dhanba inay yihiin wax laga tegay isla markaana dunida loo halgamayo yacni xagga tiknolojiyadda iyo weliba in dayaxa la gaadho iyo dunidu inay qof kasta oo bini aadama uu ka yimaado miyi isla markaana magaalo ku dambeeyo isla markaana horumar weyn sameeyo iyadoo taa ugu dhawaaqaysa weliba cod sare ugu dhawaaqaysa ayaa waxa ay leedahay fanaanadu adduunkan iskarab degay yacni dunidan maaragtay mid ka noqotay maadaama maanta dunidu maanta ay mid tahay oo maaragtay qofka qaarad joogiyo qofka qaarad joogaaba is arkayaan waxay leedahay adduunkan iskarab degay waxaa geedi loo yahay ee loo guntanaya yacni loo xiimaya loo ordaya habeen iyo maalin loo socdaa in guudka sare laga dego qof waliba nolosha ta u saraysa inuu dego yacni waxaa jirta xigmad tidhaahda ninka buurta hoosteeda ka heesayo figteeda nolol habboon sidaa daraaddeed waxay leedahay waa inaad ka soo baxdaa miyiga oo aad ka timadaa laakiin fanaankani marka uu isagu isa sharxayo qaybta soo socota erayada ayaynu ku arki doonaa bal waxa uu yidhaahdo sidaa darteed daawadayaal
fanaankan cabdirasaaq anshax oo matalaya inuu yahay qof reer baadiyaha islamarkaana lagu eedeeyey inuu adduunyada ka dambeeyo gabadhu ay ku eedeysay oo ay leedahay dunida waad ka dambaysaa maadaamaad reer baadiye tahay maadaamaad tahay qof maaragtay geel jira ah sidaa daraaddeed waxa uu fanaankani ku jawaabi doono waynu arki doonaa laakiin horta marka u horeysa qofku inuu geel jiro noqdo inuu reer baadiye noqdo maceebba maaha ceeb qof waliba adduunka meel buu kaga nool yahay qof waliba meel buu adduunka ka doortay qofka biniaadamka waxa uu dooran karaa yacni inuu ku noolaado qurbaha wuxuu dooran karaa inuu ku noolaado miyi waxa uu dooran karaa inuu ku noolaado meel magaalo ah oo magaalo weyn oo Soomaaliyeed yacni qofka dookhiisa ay ku xiran tahay iyo farxadiisa iyo sida wax u dareemayo sidaa darteed wadayaal fanaankani waxa uu si quman oo toosan uga jawaabaya eedeynta loo soo jeediyey eedeyntaasi waxa weeye inuu yahay qof reer baadiye ah oo reer miyiga wuxuuna ku jawaabayaa sidan waxa uu odhanaya oo ku bilaabaya hadalkiisa afagaalka guuriya dayaxa iskarab maray goor hore inaan tegey maba ogid gardaraney ee aan gelina soo jiray macnaha waxa uga jeeda afagaalka guuriya dayaxa iskarab maray haddaynu macnayno yacni intuu waayaha adduunyadu ay soo jirtayba anna aan soo jiray ee maaragtay dunida aan soo joogay waxyaabaha yacni waayaha isdhaafaya iyo maaragtay waayaha adduunka lasoo maray anna aan noolaa goor hore inaan tegey maba ogid gardaranay halkaana waxaa uga jeedaa inuu leeyahay magaalo waan ku soo noolaa jiray haymoodin oo keliya imika inaan anu ahay qof reer baadiyahan aad arkayso ee ku hortaagan inaan ahay haymoodin laakiin waxaan ahaa qof magaalo ku soo noolaa jiray oo welibana magaalo in badan ku soo noolaa jiray isla markaana adiga ay nolosha magaaladu ku cusub tahay anigu waan waaye arkay miyi baan iska joogaa miyi baan noloshayda iyo geelayga iyo arigayga iyo loodayda iskaga dhaqda alxamdulilah weliba waxaan soo jiray buu leeyahay fanaankani gelino ayaan soo jiray ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeynayaa taasina waxay noo cadaynaysaa in uu jiro qof biniaadan ama qof Soomaaliyeed oo intuu maaragtay magaalo in badan ku noolaa ama qurbaba ku soo noolaa kadibna iskaga tegey miyiga ku noolaaday farxadiisii iyo noloshiisii halkaa ka dareemay isla markaana halkaa ka helay isla markaana bartaa ku nool laakiin dhibaata ay ka haysato marka uu yimaado magaalo ama marka dad reer magaalo ay yimaadaan ay odhan karayaan waa sidee qofkaaga reer miyiga dambeeya maadaa moobeelkaba shidi yaqaanaa hadda waxaa laga yaabaa in qofka biniaadanka ee reer miyiga lagu sheegayo uu soo ahaa qof reer magaala aqoon-yahana jaamiciya laakiin farxadiisa iyo noloshiisa uu halkaa ka arkay haddaba daawadayaal iyadoo fanaanka cabdirasaaq anshax uu ku faraxsay noloshiisa yacni uu matalayo qof reer magaala ahaa jiray markiisa hore laakiin ku dambeeyey miyi isla markaa nolosha ku faraxsan ayaa doodiisaas oo dhan waxaa burburinaysa fanaanada loo yaqaano Nimco Degan iyadoo ku qiimeynaysa qaabka dharkiisa iyo meesha uu ku nool yahay baadiyaha iyo macawista yara gaaban iyo looda iyo geela iyo waxyaalaha uu la socdo iyo halkay ugu timi iyadoo ku qiimeynaysa ayaa waxa ay leedahay fanaanadu isla markaana ay ka odhanaysaa geel iyo lo iyo adoo wata gunyo xoolaad oo gaawihii iyo sita go-an yari iyo gudin hadda waa go' yar iyo gudin maad iga gadaysaa samadan u guuraa weliba way qoslaysaa fanaanadu sababtu waa maxay sababta ay sidaa ugu qiimeynayso waxa weye qofka biniaadanka marka horeba waqtiga aynu joogno waxaa lagu qiimeeyaa yacni muuqaalkiisa yacni waxaa jira dad badan oo garasho iyo maaragtay dadnimo leh oo welibana muuqaalkoodu lagu qiimeeyo oo aan shaqo ku helin oo maaragtay nolosha waxba ka noqon sidaa daraaddeed dadkaasoo kale iyagoo weliba ka wanaagsan baa laga yaabaa dadka ugu caansan ama dadka maaragtay bulshada magaca ku dhexda iyagoo dadnimo ahaan iyo shakhsiyaad ahaan ka wanaagsan ayaa haddana aan garabkooda la istaagin sidaa daraaddeed adigoo iyadu waxay leedahay geel iyo lo iyo adoo wata gunyo xoolaad oo gaawihii iyo sita go-an yar iyo gudin hadda waa go' yar iyo gudin maad iga gadaysaa samadan guuraa weliba way ku qoslaysaa laakiin fanaanka muxuu samaynayaa bal waynu eegi doonaa fanaanka waxa uu samaynayaa markay erayada u isticmaasho iyo waxyaalahaas oo dhan u isticmaasho fanaanka gaadhigii ay wadatay heesta bilowgeeda ayuu samaynayaa marka uu sameeyo gaadhigii oo weliba uu dhammaystiro gaadhigii oo weliba ninkii la socday inanta uu samay kari waayo yacni gaadhigii uu hagaajin kari waayo laakiin isagu farsamadiisii uu magaalada ku bartay uu la soo baxo isla markaana uu sameeyo ninkii hore waaba ereyeysaaba
ninkii la socday bay bay ka horeysa gaarigaagana iska saxo iska kaxayso anigu waxaan ku harayaa ninka reer miyiga ee laacibka soo jabaya ee ku noolaa jiray maaragtay magaalada laakiin iminka miyiga ku dambeeya kaasoo ii soo bandhigay xirfadiisa uu magaalada ku soo bartay wuxuu ahaa makaanig isla markaana magaalada hore ugu soo shaqeeyey isla markaana iminka aan xaqiiqsaday inaanu ahayn geeljiro dhaba laakiin uu ahaa qof maaragtay geeljirinimada jeclaaday isla markaana yacni halkaa ku sharfan geeljiru waa sharaf reebaadiyuhu waa sharaf laakiin maaha sida dadka qaar moodayaan haddaba fanaankan iyo weliba inantan marka dambe way isla hadhayaan qisadu halkaasay ku dhammaanaysaa laakiin waxyaalaha ka khaldan waxaa ka mid a heestan degdega yacni heesta kale qaybteeda dambe inay isfahmaan bay ahayd laakiin heesta minidka u dambeeya ama daqiiqada u dambeysa ayay isfahmayaan isla markaana hawshuu dhammaynaya taasina ma fiicna qaybta dambe oo dhan in la siiyo yacni inay isfahmaan qaybta hore oo dhanna ay doodaan bay ahayd daawadayaal idinkuna kanaalka qalbi Soomaali TV qaybta commentiga ayaad ku reebi doontaan aragtidiina iyo waliba heestu sida ay u socotay iyo waliba sidaynu maartay uga hadalnay intaba soo dhawaada daawadayaal like saara share gareeya fiidiyogan insha Allah